ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale. Qaybtan caasimada South Africa sanadii 2015 iskuul ku yaala magaaladaasi waxaa dhigan jirtay gabadh lagu magacaabo Mishi Solomon. Maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa uu yimid asxaabteedii iyagoo u sheegay in iskuulka ku soo biirtay gabadh muuqaal ahaan aad ugu eeg oo lagu magacaabo Kaysidi Neer, taasoo ay qacdi horeba markay arkeen ay u qaateen inay tahay Mishi, balse ay gadaal ka ogaadeen inaanay ahayn Mishi. Markii arrinkaasi loo sheegay dhankeeda wax muhiim ah kama sii lahayn, oo arrinkii way dhigaysatay waana iska sii dhaaftay. Muddo kadib Mishi maalmaha kamid ah iyadoo iskuulka joogta waxay la kulantay gabadhii Kaysidi ahayd ee aadka ugu ekeyd. Markay aragtayna way la yaabtay, iyagoo sanaan ka bacdi ay isbarteen, isbarasho ka bacdina ay noqdeen saaxiibo aad iskugu dheer. Maalmaha kamid ah oo ay ku beegan tahay fasax iskuuleedka sanad dugsiyeedka ayaa Mishi Solomon iyo Kaysidi Neer waxay galeen dalxiis, kuwaasi oo sawiraan kusoo wada galay. Sawiradii waxay kusoo faafiyeen baraha bulshada, isla markiiba waxaa arkay Kaysidi faamiligeedii iyagoo aad ula yaabay inanta u eeg inantoodii, kana codsaday Kaysidi inay inantaasi kusoo marti qaado guriga. Kaysidi saaxiibteed Mishi way u sheegtay arrinkii, Mishina way aqbashay. Markii ay gurigii timi waxay la kulantay faamiligii Kaysidi waana isbarteen. Barasho ka bacdi faamiliga Kaysidi waxay weydiiyeen Mishi sanadii ay dhalatay, iyadoo u sheegtay inay dhalatay sanadii 1997. Faamiligii Kaysidi shaki ay hore u qabeenba ayaa kusii siyaaday. Aan idin celiyo dib 17 sano ka hor, sanadkuna ku beegnaa 1997 ayaa faamiliga Kaysidi waxa ugu dhalatay gabadh cusbitaal ku yaala magaaladaasi. Gabadhii ugu dhalatay cusbitaalkaasi nasiib darro waa laga xaday, waxaana ka xaday gabadh isu soo ekaysiisay neeraskii ka shaqaynaysay dhakhtarka, soona qaadatay dharkii iyo direyskii ay xidhan jireen kalkaalisooyinka caafimaadku, taasi oo u suuragelisay inay cusbitaalka soo gasho, ilmihiina sidaasi ku xado. Markii arrinkii booliskii lagu wargeliyey, booliskii aad bay arrinkii uga daba galeen, way raadiyeen, nasiib xumo way waayeen gabadhaasi. sidaasi ayaa ilmahaasina lagaga quustay raq iyo ruuxba. Balse faamiliga Kaysidi markay arkeen Mishi siday faamiligooda ugu eg tahay, khaasatan inantooda Kaysidina aad ugu eg tahay, isla sanadkii laga xaday inantoodina ay dhalatay, markiiba waxay yaqiinsadeen inay inantoodii tahay. Waxaanay go'aansadeen inay u tagaan maamulka iskuulka iyagoo ku wargeliyey inay Mishi arrinkaasi u sheegaan si ay uga qaadaan hidde-sidaha DNA-da. Mishi markii hore aad ayay u diiday, balse markii lagu qanciyey iyada laftarkeedu ay aragtay siday iskugu eegyihiin faamiligan, way iska ogolaatay. Markii DNA-dii soo baxday waxaa caddaatay inay Mishi tahay inantii ka luntay faamiligaasi, aan idhaahay inantii laga xaday faamiligaasi 17 sano ka hor. Arrinkii markiiba waxaa lagu wargeliyey booliskii oo tallaabo sharciya ka qaaday faamiligii soo korsaday oo kala ahaa Michael iyo xaaskiisii Lafona, iyagoo isla markiiba xabsiga usoo taxaabay, su'aalena ka weydiiyey arrinkan. Balse baadhitaan dheer ka bacdi boolisku waxay ogaadeen inuu Michael aanu arrinkan war u hayn, isaga laftarkiisa ay Lafona ku qaladay una sheegtay inuu ilmahoodii yahay, maadaama xilligaasi Lafona iyaduna uur lahayd balse ilmihii uu ka saqiiray, ayna go'aansatay inay ilmahan xaddo. Michaelna ku qancisay inuu ilmahan yahay ilmahoodii. Sidaasi uu Michaelna ku aaminsanaa muddadaasi 17 sano ah inay Mishi Solomon ay tahay inantiisii ama gabadhiisii. Booliskii baadhitaanadii markii ay arkeen ayna fahmeen sida ay wax u jiraan, Michael xorriyadiisa ayay dib ugu celiyeen waanay fasaxeen. Halka dhinaca kale ay inantii Mishi Solomon ahayd, maadaama 17 sano jirto aanay gaadhin qaangaadhkii 18 sano ahaa, ay ku xareeyeen ama ay geeyeen guri lagu xanaanayo carruurta yaryar, iyagoo oo sheegay in 18 sano marka ay gaadho iyadu go'aan ka gaadhayso labada faamili kay la noolaan doonto, maadaama kana la soo kortay aad u taqaano, kan kalena ay isku dhiig yihiin oo ay faamiligoodii rasmiga yihiin. Dhanka kale maxkamaddu waxay Lafona ku xukuntay muddo 10 sano xarig ah. Intaasi ay qisadeena ku eg tahay. Wabillahi tawfiiq. aad baad mahadsantiin.